qof kasta inuu og yahay faa'iidada ay aqoontu u leedahay ummadda iyo bulshadaba luuqaduna ay tahay furaha aqoonta iyo dhaqankaba sidaasi darteed dugsiga Sheekh Mahdi qabadkii iyo horumarkii uu gaadhay dugsiga Sheekh Mahdi Center of Language xarunta luuqadaha iyo technology-ga ee Sheekh Mahdi waxa dhidibada loo taagay sanadkii 1991 waxa ayna ka dambeysay fikradii kartidii iyo aqoontii Professor Ahmed Sheekh Mahdi kadib markii uu arkay baahida loo qabo waxbarashada iyo barashada luuqadaha iyadoo xilligaasina ay burbureen dhammaan hay'adihii dawliga ahaa ee ka jiray dalka taasi oo keentay in meesha ay ka baxaan dhammaan kaabayaashii waxbarasho sababtayna in ay dhalinyar badan ay waayeen waxbarasho taasi oo keentay in ay noloshooda ku lumiyaan waxyaabo aadamaha u xun sidaasi darteed waxyaabaha lagu bartay Sheekh Mahdi Center of Language waxa kamid ah dhinaca luuqadda iyo qaybaha kala gedisan ee computerka hadii ay noqon lahayd sida qoraalka oo kale akhriska dhageysiga iyo waliba ku hadalka taasi oo iftiimisay himiladii iyo dadaalkii Professor Ahmed Sheekh Mahdi aadan taasina waxa ay dardar gelisay inuu xaruntu bilowdo qaybaha ay ka mid yihiin computerka qaybihiisa kala duwan kadib markii ay soo ifbaxday baahida ay bulshadu u qabto aqoonta adeega casriga ah iyo technology-ga marka laga tago adeegyada luuqadaha iyo computerka xarunta Sheekh Mahdi waxa ay u suurowday in ay hesho aqoonsi wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo fududeysay in ay xaruntu albaabada u furto waaxda waxbarashada asaasiga ah ee hoose dhexe oo ay ilaa hadda ka gaadhay guulo la taaban karo iyadoo ay muuqato baahida hawshaasi ay leedahay iyo sidii kor loogu qaadi lahaa tirada ardayda soo gasha waxbarashada asaasiga ee hoose dhexe xarunta Sheekh Mahdi iyo luuqadaha iyo technology-ga casriga iyadoo haddaba 19 jirsatay xarunta Sheekh Mahdi Center of Language ayaa waxa kale oo suurta gashay in ay ballaariso dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin kor u qaadista macallimiinta oo la gaarsiiyay ilaa tiro gaaraysa 10 macallin ka badan iyadoo loo eegayo heerka aqoontooda iyo waaya aragnimada kuwaasi oo inta badan noqday midhihii ay kolka hore soo saartay xarunta Sheekh Mahdi Center of Language guulaha ay gaadhay xaruntu hadii aan wax ka sheegno waxa kamid ah in ay soo saartay arday tiro badan sidoo kalena tayadoodu sareyso iyo in ay kordhisay xaddiga waxqabadka ay leedahay sida dhismo ahaan agab ahaan iyo waliba tayo ahaan iyo sidoo kale in ay soo saarto aqoon-yahano saameyn ku leh dhinaca bulshada in ay soo kordhisay adeega computerka qaybihiisa kala duwan Sheekh Mahdi Center of Language waxa kale oo himilooyinkiisu ay yihiin in kor loo qaado baaxadda aqooneed ee ay bulshadu leedahay in la ballaariyo macahadka tirada ardayda iyo macallimiinta gaar ahaan xarumaha marka adeegto sidoo kale in kor loo qaado ogaalka iyo waxbarashada bulshada loona bixiyo adeegyo kala duwan Sheekh Mahdi Center of Language oo ah macahad ka tirsan macadyada ku yaala magaalada Boorama isla marhaantana kuwa lagu tiriyo inuu ahaa mid kamid ah kuwa ugu ilaha dheera ayaa xafladaha qalin jabinta oo ay ka hadleen qaar kamid ah ardayda iyagoo hore uga soo baxay dugsiga ama maxadka Sheekh Mahdi ayaa waxa kamid ah Dr. Cabdiraxmaan Nuur Xuseen oo ah isagu arday ka soo baxay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Amuud isla marhaantana ahaa arday ka hadlayay sida ay uga goonayd Professor Ahmed Sheekh Mahdi inuu hirgeliyo ugu dambeyntiina halkaas soo gaarsiiyo inuu wado waxbarashada dhinaca luuqadaha iyo computerka waxaan rabaa hal shay inaan tilmaamo saddex sano dhiganay dhowr fasal baa dadku wadartay way bilaabaan way iska baabaan fasalku iska yaraado sida caadiga ah soo socdo fasalku soo yaraanay afarta baa lagu bilaabi jiray afarta waxa ku soo dhaanto hadana fasalka ma la soo toban sano bulshada fasalka waxaan uga dalay mar baan afar arday ku soo haray fasal iskuul magaca labada meelaas bilaabi jiray fasal iyo taqriiban 8 daqiiqo jiray afar arday ku soo haray marka macallinka la tashado wuxuu ka waran sabaxay magaasa wuxuu noo sheegay inay ka go'antay inuu siiyo afar qof fasal afar qof oo 8 habeen soo dhacay labadii qof shaqay soo bilaabay way adagtay xiisada badan bay 8 inoo bilaabi jiray sagaalkii marka ujeedada ugu keenay shaqada haween commitment inuu tulaka yani sida ugu qoray fasal afar qof garasa sida caadi ah ku fikirno socod meel ugu hadlo
laakiin qofkaasi ka go-an tahay inuu soo saaro sidoo kale waxaa ka hadlay Professor Ridwan Maxamed Cusmaan oo ah hormuudka kuliyadda waxbarashada ee jaamacadda Amuud isla mar ahaantaana ahaa arday ka tirsan ardayda hore uga soo qalin jabisay maxadka dugsiga Sheikh Mahdi Center of Language ninka rabaynu wax barto waxa laga maarmaan waa inuu luqada Ingiriiska barto haddii leedahay luqada Ingiriiska aqoon wax baranaya waxa dhici kara ku sheegay oo ku cilna mar labaad in riyada ay deentahay waxaan rabnaa mustaqbalka insha Allah inay soo baxaan niman dhaqaatiir injineer maxaa ku dhahay aqoon leh oo luqada Ingiriiska ku hadlaya laakiin runtii maxaa ku dhahay ku farximeen in la arko nin dhakhtar ah oo hadii la yiraahdo mid CV-ga soo qoro ama waraysiga Ingiriis laga qaadayaan maxaa ku jawaab karin taas dabcan guud darooyin bay noqonaysaa marka ugu dambeyntii waxaan leeyahay haddaan nahay ardayda maanta jaamacad wax ka dhigata iyo ragga ka qalin jabiyay kuwa dhaqaatiirta noqday haddaan nahay dad wax bartay oo dadaalaha haddaan nahay waxaan ku soo celinaya hadalka Axmed Sheikh Mahdi burjiga adigaas kale sidoo kalena waxaa isagoo halkaasi ka hadlay macallin Cabdisalaan Sheikh Mahdi Aadan oo isaguna wax ka taataabtay adeega iyo faa'iidada ay leedahay luqaddu Professor Maxamed Muuse oo ah isuduwaha wasaaradda dib u dejinta ee gobolka Awdal ayaa isaguna ka mid ahaa ardayda hore wax uga soo baratay Sheikh Mahdi Center of Language la mar ahaantaana ka hadlay xafladahaasi macallin Cabdixakiin Maxamed Xirsi oo ah maamulaha macallimiinta ahna maamulka xigeenka maxadka ayaa isaguna waxa uu taabanaya halka ay marayso waxbarashada maxadka haatani isagoo waxana ka yidhi dhinaca luqadda iyo adeega kombiyuutarka haddii aan si faahfaahsan uga hadalno xaaladda uu dugsigu ku jiro waqti xaadirkan dugsigu sida rasmi ah wax ugu furnaa 7:00 waxaa halkaas wax lagu baraa ardayda dugsiga hoose dhexe ee primary-ga waxaana waxbarashadu u xirantaa 12 duhurnimo waxa kale oo halkaas wax kula barta ardayda computeriska oo kuwaas oo iskugu jira macallimiin iyo shaqaalaha rayidka iyagana waxay waxbarashadu u bilaabataa 8 ilaa 12 salaada duhur kadib waxa uu dugsigu mar labaad dib u furmaa 1 duhurnimo waxaana wax loogu dhigaa ardayda computeriska haddaba si rasmi ah dugsigu waxa uu qaybta luqadaha u bilaabaa 3:00 galabnimo halkaas oo ay waxbarashadu socoto ilaa 9:00 habeenimo waxaana wax ka dhigta qaybta luqadaha iyagoo ku bilaabaya beginner intermediate iyo advanced ama bilow dhexe ilaa iyo sare waxaana halka ka howlgala macallimiin tiradoodu dhan tahay 13 macallimiin oo iskugu jira qaybta computeriska iyo qaybta luqadda Ingiriiska iyo waliba qaybta macallimiinta aragti wax u dhiga ardayda dugsiga hoose dhexe Professor Ahmed Sheikh Mahdi Aadan oo ahaa aasaasihii xarunta maxadka Sheikh Mahdi Center of Language ayaa isaguna wax ka taabanaya taariikhda iyo ujeedada wax loo baranaya inaanay ahayn dhinaca shahaadooyinka oo ay yihiin warqado balse ay ujeedadu tahay in aqoontu ay heerkaasi gaarsiisan tahay waxaan anagu isku daynaa intii karaankayga in ardayga shahaadada qaadanaya uu noqdo arday u qalma shahaadada way waxay ogtihiin shahaadadu waa waraaqda waxay sheegaysaa aqoonta qofku uu leeyahay waxaasaan soo bartay laakiin haddii aad shahaado sidato aqoonteediina aada mudan waxaan oranayaa inaad tahay nin beenaala ah oo been sheegaya language ardayda uu soo saaray ayaa waxay u muuqdaan inay yihiin kuwa ugu cadcad dhalinyarada wax baranaysa iyagoo ka soo baxay jaamacadaha isla mar ahaantaana ka noqday sida ka dhex muuqata hormoodo iyo macallimiin wax ka bara jaamacadaha iyo dugsiyada kale